Serbia waxay leeyihiin 3 dhibcood halka Costa Rica ay iyagu markaasi wax dhibic aysan lahayn sida daraadeed kulamada markaas soo aadan hadii ay Serbia kulanka ugu dambeeya guul weyn ay gaaraan waxay ku soo baxayaan kaalinta koowaad iyadoo Switzerland iyo waliba Brazilna kulamadoodu ay iyaguna yihiin kuwa markaasi aad loo qiimeyn doono waana ciyaaro ama group markaasi isaguna xaaladiisu ay aad u adag tahay maxaan ka barana kulankan Switzerland 2 gool iyo gool guul ah oo ay ka gaareen Serbia ayaa ka dhigan markoodii ugu horeysay koobka adduunka oo ay guul helaan 2018 waxaana taa ay ka dhigan tahay in ay markaasi guul ay u baahan yihiin waqti dambe ay heleen Switzerland ayaa iyadu waxa ay lumisay kaliya hal jeer 24 kulan ee ugu dambeeyay 17 kulan way adkaadeen 6 jeer barbardhac ay galeen markii ugu dambeysay waxa looga adkaaday 2 gool eber Portugal ayayna guul daro kala kulmeen heerka isreebka koobka adduun iyadoo ay markaa ahayd October 2017 waxyaabaha kale ee aan markaasi ka barana waxa kamid ah Switzerland ayaa martigelisay 1 gool 3 kulan oo isku xigta koobka adduunka waana kaliya goolasho ay martigeliyeen waa kaliya 1 gool ay martigeliyeen 3 kulan ee ugu dambeeyay ka hor 10 kulan ee hore markaasi ay u ciyaareen Stephen Liechtenstein ayaa safaraya markaasi markii loo eego koobka adduunka waqti aad u fog iyadoo xulka Switzerland uu si wacan ciyaaryahankan kaga soo muuqanaya waxaana ciyaaryahankan uu yahay ninka ugu safashada badan Switzerland ama Swiss-ka markii loo eego taariikhdooda waxyaabaha kale aan ka baran waxa kamid ah Alexander Mitrovic ninka la yiraahdo ayaa si toos waxa ugu lug leeyahay 15 gool 15 kulan ee uu ku soo bilaabay xulka Serbia 13 gool waa uu dhaliyay 2 goolna waa uu caawiyay 5 kamid Granit Xhaka 10kiisa gool ee Switzerland uu dhaliyay ayaa ka yimid meel ka baxsan diilinta ganaaxa ama markaasi boxka banaankiisa kubadaha laga tuuro kaliya Joseph Hagi oo isagu markaasi 6 gool dhaliyay ayaa kaga badan koobka adduunka goolashiisa Switzerland xidigeeda Xherdan Shaqiri oo 4 dhaliyay iyadoo markaasi Robert Balaman iyo waliba Andre waa ciyaaryahanka markaasi Andre Abiglan marka ciyaaryahanadu la yiraahdo oo ku rikooraya amba uu ku gool noqonayo Xherdan Shaqiri ayaa isagu si toos waxa uu lug leeyahay 5 gool 6 kulan ee ugu dambeeyay ee koobka adduunka 4 waa uu dhaliyay 1 goolna markaasi waa uu caawiyay ciyaaryahan Xherdan Shaqiri hadaba kulamadu ayaa ahaa markaasi kuwa aad u xiiso badan goor waxaan eegi doonaa kulamada kale la ciyaari doono iyo waliba wararkii kale ee markaasi suuq kala iibsiga ciyaartoyda